waxaan jeclahay inaan halkan ka hadlaado oo aan mahadnaq u jeediyo labada nin ee professor Shambe iyo Axmed Sheekh Maxamuud oo qayb weyn oo madax ka qaatay ururinta iyo hagaajinta iyo tirtirka buugga oo iyaga aantood aan suuragal noqon karin karteen. waxaan kaloo halkan ka salaamayaa jajiraheenna allaha barakeeye cabdirasaaq cabdilqaadir xaashi oo halkan nagala qayb galay xafladda. waxaan kaloo aad iyo aad madaxa gaabshay waa taqaanay cabdirashiid ducaale oo muddo badan aan wada shaqaynaynay oo buuggan ku qoran waxaan ka arkay aan ku qoray buuggan waana arki doontaan markaad akridaan in waxaan halkaa ku qoray ay dhab tahay. waa nin hay-addiisu shirkadiisu ay miyiga Soomaaliya oo dhan iyo Ethiopia iyo Kenya intaas gaarsiisa lacag dadka halkaa degani ay u baahan yihiin oo laga yaabo qaarkood inay abaara ku dhaceen, qaarkood in ay lacag la-aan iyo dhibaato badan oo rafaadii u soo maray. waxa uu ku caanbaxay cabdirashiid inuu intuu magaalooyin tago Soomaaliya ah amba Ethiopia ku taalla Soomaalida uu geeyo dawooyin iyo taageero kale oo dadka halkaa degani ay u baahan yihiin, gaar ahaan dadka qaxootiga ah ee sida badan aan u dhibaataysan. marka nin la soo koobi karayo maaha qiimaha iyo qaayaha oo cabdirashiid ku leeyahay allaha barakeeye ee taariikhda Soomaalida, gaar ahaana aniga muddo 40 sanadooda waxaan wax ka dirayay oo aan dadkayga qaraabada ah ee meel kasta kala yaalla aan u dirayay dahabshay ayaan u dirayay. markaasaan intaan u tagan oran jiray lacagta halkaan halkaasa la gaarsiinaya, taana halkaasa la gaarsiinaya. isaga ma ahayn dadkayga u shaqeynaya isaga. marka taasina aad iyo aad ayay ii saamaysay oo aan waxyaabo badan ka faa'iidaystay oo aan ugu mahadnaqayo una ducaynayo. waxaa kaloo ka mida dadka aan magacaabayo maxamed cabdilaahi oo sida aad sheegteen waxyaabo badan iga yaqaana. anigu waxyaabo badan oo aan aqoonin ayuu ii sheegay oo dhab ah. waxaan leeyahay allaha barakeey. sidaa halkan BBC-da waxaan ku soo biiray anigu haddii intaasan ka baxo bishii November 2019 waa muddo dheer. BBC-du markaa waxay ahayd 30 daqiiqado oo qora. 70-aadkii iyo 80-aadkii iyo 90-aadkii BBC-da maqalkeedu wuxuu gaaray tigta ugu sarreysa oo idaacadda Soomaali ku hadasho aanay marnaba gaarin. waxaa dhacday in markii kacaankaas iyo tariinkaas u kordhay BBC-da wargeyska lagu magacaabo London Times ayaa wuxuu qoray maqaal ku saabsan
dadka Soomaalida waa bilowgii sideetanaadkii waxa ay wargeysleeyay qofka Soomaaliga ahi cid ka sarreysa inaanay jirin ayuu aaminsan yahay qofka Soomaaligu ayuu yiri wargeyska London Times oo caan ah la yaqaano talabaad Soomaalidu waxay aad u jecel yihiin oo ay ku mintidaan buuga wargeysku diintooda islaamka iyo quraanka arrinta saddexaad ee la yaabka leh waxaa weeye buu yiri wargeysku Soomaalidu waxay aad u jeceshahay BBC marka BBC waa weyn tahay waa ballaaran tahay dad fara badan baa u shaqeeya waxa wargeysku ka hadlayay waxaa weeye laanta af Soomaaliga oo uga yaabo wargeysku sida dadku ay u dhageystaan gaar ahaanna barnaamijyada ay aad u jeclaayeen waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee qaarkeed aad halka ka sheegteen ee marka aan soo galo aan ku bilaabi jiray muusigii la yaabka lahaa ee wadnaha kusoo dhufanaya muusigaas magaciisa waxaa la oran jiray Africa Dances anigaa markaa soo galay anigoo muraaqaysan oo yani muusiga la yaaban toddobaad iyo markaa idhaaho dadku waxay oran jireen wiilkayga qabo wiilkayga qabo abdilaahi caadi baa dhageysanayaa marka waktigaas toddobaadkii iyo intii ka horeysay lixdamaadkii muxuu ahaayey barnaamijyada telefishinku aad iyo aad bay u hooseeyeen Yurub oo dhan Ameerika mooyee anigu hadda waxaan joogay iyadoo BBC-da telefishinkeedu aanu midab ahayn black and white caddaana ayuu oo indhaha muxuu ahaye haagelaya BBC-da telefishinka kalarka waxaa la bilaabay 1960 anigu halkan jooga waagidii ayaa la bilaabay maantana BBC-du waxyaabaha ay sheegto ee ay ku sii dayso barnaamijyada reediyoyada iyo telefishinka waa wax la yaab laho mucjiso ah telefishinka BBC-da haddii aad daawato dhowr iyo kuwo waaweyn oo marka aad u dhowaato aad isleedahay war amaad qofkanba taabo garaysa ayay BBC-du maanta dagaalka caynkaas waxaa maanta jira waxaa la yidhaaho mobile faxes muxuu ahaye iyo online-ku waa arrin cusub weeye telefoonkan qof u diraysaa wax allaaliya waxaad doonto ayaad ka dhamaysanaysaa adigoo gurigaaga jooga fariintaad gudbin karaysana online-kaad ku gudbinaysaa waa wax muxuu ahaye sida aad doonto aad uga shaqaynayso lixdamaadkii iyo kontomaadkii waxaasi ma jirin marka maantan af Soomaaliga waxaa jira in aanu dhibaatooyin badan kala kulmi jiray oo dadkii ka shaqaynayay magacyadooda ma wada sheegi karayo laakiin buugga ayay intooda badan ku qoran yihiin buugga waad akhriyi doontaan waanad arki doontaan markaasi magacyadooda marka waxaa jiray oo aanu ka hadli jiray arrimaha dhaqaalaha arrimaha siyaasadda arrimaha bulshada arrimaha cilmi sayniska marka af Soomaaligu meelo uu ku ballaaran yahay oo uu ku faahfaahsan yahay waa jiraan meelo uu ku gaaban yahay waa jiraan oo adan ereyada doonayso adan u helin waxaa ka mid ah arrimaha dhaqaalaha waxaa ka mid ah arrimaha sayniska
marka kuwaasoo dhan kama helaysid muxuu ahaye erayo soomaaliya oo u qabo marka waxaa kasab ay nagu noqotay in aanu anagu dhinacayaga aanu ku dadaalo inaanu erayo soomaaliya aanu soo saaro oo idaacadda aanu kaga hadalno marka haddii aan ku bilaabo waxaa weeye maxamed axmed sheekh galmar waxa uu soo saaray ereyga la yidhaahdo gacanka hadal gacanka hadal waxaa leeya dagaal muran buuq marka halkii uu ku oran lahaa dagaal ayuu wuxuu yidhi gacanka hadal ereygaasi wuu hirgalay idaacadaha marka dhalinyarada iyo siyaasiintuba way isticmaalaan ereygaas gacanka hadal shaqadiis faalax oo halkan inooga fadhiya waxa uu soo saaray ereyga la yidhaaho xagtir marka waa maxay waxaa weeye guddi amba koox amba dad dhinacan midibka aad ugu sii fog oo galmaqaatayaala sida kuwii ashada ugu halkan mudaharada ka dhigay nacbaa muslimka iyo qaxootiga iyo madowga marka dadkaasi waa xagtir weeye anigu markaas waxaa soo saaray erayo badan oo ku ahayd ilaa 12 gaari